bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada janalka maalmaha. hal shukulaato uu xadi jiray oo loo dhaafay ayaa waxay sababtay inay kusoo islaamto gacantiisa in ka badan 6 milyan oo ruux. waa qiso runtii xiiso badan, waxayna dhex martay wiil yar oo asalkiisu yahuudi ahaa iyo nin ganacsada ah oo kasoo jeeda dalka Turkiga. Jaad waa wiil asalkiisu yahuudi ah, wuxuuna ku noolaa dalka Faransa isaga iyo reerkiisa. guriga uu deganaa Jaad qaybta hoose waxaa ku yaalay dukaan ama baqaalo, waxaana iska lahaa ruux muslim ah oo ganacsato ah oo kasoo jeeda dalka Turkiga, waxaana lagu magacaabi jiray ninkani Camu Ibrahim. maalin waliba Jaad hooyadii waxay u soo diri jirtay dukaanka Camu Ibrahim si uu raashin uga soo iibiyo. Jaad marka uu alaabta soo iibiyo wuxuu markasta hore u soo xadi jiray xabad shukulaato ah, sida ayuuna ahaa mar waliba. alaabta ayuu soo iibin jiray, shukulaatadan horey ayuu u soo xadi jiray. maalin maalmaha ka mid ah Jaad wuxuu soo iibiyay adeegii loo soo diray, balse wuxuu soo iloobay xabadii shukulaatada ahayd oo uu soo xadi jiray. markii uu damcay inuu ka soo baxo dukaanka ayaa waxa u yiri Camu Ibrahim, wuxuuna ku yiri isagoo gacanta ka hayo, wiilkayga waxaad soo halmaamtay xabadii shukulaatada ahayd oo aad soo xadi jirtay. Jaad aad ayuu u naxay, wuxuuna dareemay xishood, wuxuuna su'aalay isaga oo aad ula yaaban, may arki jirtay maalin waliba markaan xadayo shukulaatada? Camu Ibrahim ayaa u jawaabay oo ku yiri haa, waan ku ogaa. balse wuxuu yiri Camu Ibrahim, waxaan kaa doonayaa inaad balan iga qaado maanta inaadan qof dama wax ka xadi doonin. anigana waxaan kuu ballan qaadayaa inaan ku siin doono shukulaatada aad jeceshahay ayada oo hadiye ah maalin waliba. Jaad balantii ayuu qaaday, Camu Ibrahimna wuxuu oofiyey balantiisii. maalin waliba Jaad wuxuu imaanayay dukaanka, markii uu alaabta iibsadana wuxuu Camu Ibrahim siinayay xabadii shukulaatada ahayd oo ay ku heshiiyeen. tacaamulkii wanaagsanaa ee Camu Ibrahim kula dhaqmi jiray Jaad iyo naxariistiisa ayaa waxay keentay inay xiriir wanaagsan yeeshaan, saaxiibna ay noqdaan. wiilkii yaraana wuxuu bilaabay inuu uga warbixiyo Camu Ibrahim arrimaha gurigooda, waxyaabaha sirta ahna uu u sheego, iyo sidoo kale dhibaatooyinka uu kala kulmo nolosha inuu kala hadlo mar waliba. Camu Ibrahim wuxuu ahaa inuu si degan u dhageysanayo arrimaha Jaad, kadibna wuxuu u soo bixin jiray kitaab. wuxuu ka codsan jiray inuu Jaad indhaha isku qabto, kadibna uu kitaabka ka doorto safxadda uu doonayo, kadib inuu u dhiibo Camu Ibrahim. markii uu akhriyo Camu Ibrahimna ay ka wada hadlaan arrinta haysata xalkeeda. ugu dambeyntii Jaad wuxuu heli jiray arrinta markaas haysata xalkeeda. sidaa ayay ku wada dhaqmi jireen Jaad iyo Camu Ibrahim. Jaad waa uu weynaaday, Camu Ibrahimna waa uu gaboobay. xiriirkoodiina waa uu sii xoogsaday ilaa markii dambe uu Camu Ibrahim ka dhinto. balse inta uusan dhiman ka hor Camu Ibrahim wuxuu carruurtiisa kala dardaarmay in ay siiyaan wiilkii Jaad ahaa sanduuqa uu xalka uga raadin jiray. wiilashii waxay soo qaadeen sanduuqii, waxayna u keeneen Jaad, ayagoona u sheegay inuu aabbahood dhintay. Jaad markii loo sheegay dhimashadii saaxiibkiisa Camu Ibrahim aad ayuu u naxay, wuxuuna bilaabay ooyin. sanduuqii loo keenana waa uu iska iloobay. dhowr bilood kadib ayuu wuxuu la kulmay Jaad dhibaato. wuxuu soo xasuustay saaxiibkiisa Camu Ibrahim iyo sida uu u saacidi jiray haddii arrin ama dhibaato la soo darasto. isaga oo fikirayo ayaa waxaa ku soo dhacay sanduuqii oo u fiirin jiray saaxiibkiisa Ibrahim. wuxuu u soo degdegay sanduuqii, wuuna kala furay. waxa ay indhihiisa qabteen kitaabka Quraanka, balse Jaad luqadda Carabiga ma uusan garanaynin. wuxuu isla markiiba aaday nin dariskiisa ah oo u dhashay dalka Tunis oo yaqaana luqadda Carabiga, wuxuuna ka codsaday inuu u akhriyo 2 safxadood kitaabka Quraanka. ninkii ayaa u akhriyay. dhab ahaantii wuxuu helay Jaad xalkii uu raadinayay. kadib Jaad wuxuu ninkii dariskiisa weydiiyey waxa uu yahay kitaabkan. ninkii ayaa u sharxay una sheegay inuu yahay kitaabka Alle uu soo dejiyay muslimiinta, isla markaana oo ah xalka iyo dastuurka ay isku maamulayaan. kadib Jaad wuxuu go'aansaday inuu soo islaamo, diinta islaamkana uu qaato. wuxuu ku dhawaaqay shahaadada islaamka, wuxuuna markiiba bilaabay inuu diinta islaamka wax badan ka barto. wuxuuna xifdiyey Quraankii, isla markaana wuxuu bartay tafsiirkiisa. wuxuuna isku magacaabay Jaadullaahi al-Qur'aani, waxaana gacantiisa ku soo islaamtay in ka badan 6,000 oo isugu jirta yahuud iyo masiixiyiin. Jaad halkaa dadaalkiisii kuma uusan joojin, balse wuxuu go'aansaday inuu u soo safro dalka Afrika si uu uga shaqeeyo faafinta diinta islaamka iyo fahansiinta dadka aan ayagu diinta islaamka markaas wax badan ka aqoonin.
wuxuu deganaa dalka Afrika in ku dhow 10 sano, wuxuuna dadka ugu yeerayay diinta Islaamka, waxaana alla sabab uga dhigay inay gacantiisa ku soo islaamaan in ka badan 6 milyan oo ruux. wuxuuna geeriyooday daacigii Jaadullaahi Qur'aani ahaa sanada markay ahayd 2003 kadib markii isugu tageen cudurro badan oo markaa ka jira dalka Afrika. waxaana la sheegay sababta keentay inuu u soo safro dalka Afrika in ay ahayd dardaaran uu uga tagay saaxiibkiis Camo Ibraahim. wuxuuna ku dhex arkay kitaabka Qur'aanka dhexdiisa sawir qaaradda Afrika ah, dhexdiisana ay ku qoran tahay aayad Qur'aan oo ka hadlaysa in dadka loogu yeero diinta Islaamka si ay ku jirto xikmad iyo waana wanaagsan. wuxuuna dareemay Jaad inay tahay fariin uga timid saaxiibkiis Camo Ibraahim. Camo Ibraahim markii uu la kulmay Jaad ma uusan kula dhaqmin waxyaabo xun, mana uusan dhihin waxaa tahay gaal, balse wuxuu u ifiyey dariiqa Islaamka. xaqiina si fudud ayuu ku tusiyey. Jaad waa uu dhintay, balse wuxuu ka tegay ummad dhan oo ku soo islaamtay gacantiisa, waxaana ugu dambeeyey hooyadii oo ahayd qof aqoon-yahana kuna takhasustay cilmiga bulshada, waxaana ku jira nacab diinta Islaamka iyo muslimiinta. waxayna mar waliba isku dayi jirtay in ay la doodo Camo Ibraahim diinta Islaamkana wax badan ka sheegto. waxayna jecleed inay wiilkeeda ku soo qanciso diinta Yahuudda, balse Jaad ma uusan ka quusan hooyadii inuu ku qanciyo diinta Islaamka, isagoo dhoola cadeynayo kuna celcelinayo kelimada laa ilaaha illa Allah. ugu dambeyntiina alle ayaa ayadana waafajiyey inay xaqa qaadato, waxayna jeclaatay Islaamka, kaasoona qalbigeeda ku reebay saameyn badan. sidaa ayuu wiilkeedii ku dhintay, hooyadiina ugu qanciyay diinta Islaamka, ayadana waxay noqotay ruux jecel Qur'aanka. sidaa ayayna ku wada dhinteen ayaga oo alla raali ka wada noqday. waxaase xusid mudan in hal shukulaato oo Jaad xadi jiray oo loo dhaafay ay sababtay inay diinta Islaamka soo galaan in ka badan 6 milyan oo qof. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka Maalmaha, fadlan subscribe dheh, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.